بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين. walaalayaal waxa aynu ku soo dhex jirnay mowduucii salaada ku saabsanaa. darsigeennii ugu dambeeyey waxaynu ka soo hadalnay axkaamta ay leedahay salaatu ljamaaca, oo aynu soo tilmaanay dadka muslimiinta inay waajib ku tahay. waxa aynu kusoo gabagabaynay oo aynu tilmaanay waxa weeye qaababka ay u tukanayaan jamaacada iyo imaamka iyo inta ay ku ansaxayso iyo waxyaabahaas oo dhan baynu soo tilmaanay. darsigeenna maanta biidn illaahi tacaala waxa aynu ka bilaabi doonaa qasr الصلاة وجمعها. إلهي سبحانه وتعالى waxyaabaha fududaynta ah ee diinteena uu dhex dhigay waxaa ka mid ah in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu fududeeyey salaadaha in la jamcin karo, oo halkii salaad kasta waqtigeeda lagu tukanayay laba salaadood oo kasta markaa la jamcin karo, sida duhurka iyo casarka iyo maqrib iyo cishaay. sidoo kalena salaadaha qeybtood la gaabin karo. sababaha loo gaabiyo way kala duwan yihiin. waxaa ugu muhiimsan ama ugu weyn waa safarka weeye, oo safarku waxyaabaha ilaahay subxana wa tacaala uu ku takhfiifiyey ama dadka muslimiinta ugu dhib yareeyey ayuu ka mid yahay in salaada la yidhi salaadii afarta ahayd markaa laba ragcadood tukada. sheekhu wuxuu yidhi faslun, kanina wuxuu baab u yahay في قصر الصلاة صلاة قابنتيدا وجمعها إيلا كل مديدا أما صلاة كلا إن لا كل ميو ومركا اسكمر لتكدو أي باب يهي. ويجوز وحاوبنا للمسافر قفك مسافر كأه وحاونا أكسنان لهيد هل كان إنو يراهدو وسنة أي أتهي سببتو أجوازك وحلا يراهدا الشيء قفكو إنو قاطي إنو كتغو ay u siman tahay, wax ka ratibmaya oo ajar ahayna aanu jirin. laakiin shayga sunnaha ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu jideeyey oo loogu talagalay qofku marka uu sameeyo inuu sunno tatbiiqiyey ajarkeedna uu helayo, waxaa wanaagsanaan lahayd inuu yidhaahdo waxa weeye sunno ayay u tahay inuu sheekhu tilmaamo. sababtoo ah salaada waxa weeye qofka musaafirka ahi inuu gaabiyo waa sunna culimada qeybtoodna ay tilmaamaan inay mu'akada tahay, sunno la adkeeyey in ay tahay. waayo nebigu sal slam wuxuu tilmaamay ilaahay wuxuu jecel yahay in cazaa'imta lala yimaado, in rukhastiisa la qaato sida uu u jecel yahay cazaa'imta in loola yimaado. ruksada ilaahay ku siiyey iyo waxa uu kuu fududeeyey la imaanshaheeda alle ayaa jecel, sida uu u jecel yahay salaada inaad dhamaystirtid oo casiimada qaadatidba sida uu u jecel yahay. wayajuusu waxa u bannaan buu yidhi lilmusaafiri qofka markaa safarka ku jira qasru salaati salaada in uu gaabiyo alrubaaciyati afarta ragcadood ah, laakiin shardi baa ku xidhan ama shuruud baa ku xidhan gaabinteeda oo bikhamsi sharaa'ita, 5 shardi ayaa ku xidhan. qof kasta uma bannaana, musaafir kastana uma bannaane qofka 5 shardi laga helo ayaa salaadii gaabin kara weeye. ka koobaad waxa weeye an yakuuna safaruhu, in safarka qofku uu u baxayaa uu yahay fii gayri macsiya, waxaan dembi ahayn. safar aan macsi iyo dembi ku jirin in uu yahay. haddii aad dembi u safraysid, meesha aad u safraysid aad doonaysid xumaan inaad ku samaysid, safarka aad safraysidna uu yahay safar xaaraan ah oo markaa aan kuu bannaanayn, waxa weeye ruksadiina ma lihid weeye. waxaa la mid ah
oo meeshaa soo gelaysa gabadha iyadoo aan weligeedii ama waalidkeed ama zawjkeedii aan ogolaan iska safraysa waa macsiya sababtoo ah idan bay inay qaadato ahayd idan inay qaadato ayay ahayd markaa safarka macsida ahi maxram la-aan gabadha ku safraysa way soo hoosgelaysaa sababtoo ah safarkeedu waa xaaraan maxram la-aan gabadha ku safraysa looma ogola gabadh ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysay in ay ilaa dii maxram la safarta mooye ee lama ogola marka safar kasta oo aan macsiyi ku jirin waad qaadan kartaa ruqsadda hadduu macsi leeyahay ruqsadda laguma siinayo weeye sida uu sheekhu tilmaamayo laba wuxuu yidhi wa an takuuna waa inay noqotaa masaafatuhu masaafada la safrayo 16 farsakhan waa inay noqotaa 16 farsakh waa inay noqotaa waa dhowr iyo 80 bay ku qiyaaseen dhowr iyo 80 82 meelahaas ee culimadu kilomitir ayay ku qiyaaseen laakiin daliil xoogan kuma salaysna daliil xoogan oo kilomitir ama cabir ku xadidaya safarka ma jiro bal culimadu waxay u badan yihiin magaca safar waxa uu ku dhaco oo dhan in markaa qasriga la samaynayo sababtoo ah adduunkan inuu iminka joogno waxaa la arkaa laba magaalo inta ay isu jiraan masaafadaas oo kale hal magaalo gudaheed in loo kala socdo markaan isla magaaladii joogo oo magaalada geeskeedii ka soo baxo oo geeskeedan kala tegayo dee safar ma ihi magaaladeedii baan jooga halka laba tuulo markaan u kala safrayo intii masaafadii oo kale anoo socday aan safar ahay markaa safar waxa uu ku dhacaya magacaasi ayaa la odhanayaa oo waxa weeye daliil xoogan kuma salaysna in masaafada lagu xidho waqti waxaa cajiiba dadkan sida khaladka ah ama xaaraanta ah dumarka u kaxaysta yidhaahda waa masaafaysanayna dhowr iyo 80 kilomitir bay la socdaan halkaasay kusoo meheriyaan safarka aad baxday muxuu yahay waa safar xaaraan ah safarka aad baxday waa safar xaaraan ah gabadhan guurkeedu ma kuu bannaan yahay maya waxa weeye guur booli ah weeye waa waxaad soo xaday weeye marka arrintaas oo dhan looma adeegsan karo ruqsooyinkii salaada la gaabinayay iyo wixii la midka ah looma adeegsan karo weeye sababtoo ah safarkii oo dhan baaba waxaan bannaanayn ah marka shardiga labaad waxaan nidhi waxay ku xidhan shaaficiyadu in markaa masaafada intaa la eg 16 farsakh oo 82 kilomitir meelaha u dhiganta in markaa safarku uu yahay safarka saddexaad waxa weeye wa an yakuuna in uu noqdo muaddiyan lisalaati arubaaciyati qof salaadii 4 ragcadood la tukanaya haddii safarkaagu tusaale ahaan uuba habeen bar bilowdo uuna dhammaanayo tusaale ahaan barqada dambe safarka intaa la eg masaafadiiba jar dee salaadaad gaabisaa ma jirto salaatulfajr kaliyaaba ku jirtaba waqtigii waa in waqtiga safarkaa la soconayaa salaadihii 4 ragcadood ah ay markaa soo gashaa oo aad tukanaysaa weliba waa an yanwiya qofku waa inuu niyoodaa alqasra salaada inuu gaabiyo maca alixraami niyaduna ay ku tacalluqdo ama ay ku xidhnaato marka takbiiratu lixraam ama allahu akbar uu odhanayo allahu akbarta marka la odhanayo waxa weeye inay ku xidhnaato weeye muddada dhowr iyo 80 aan tilmaanay kilomitir lama xisaabinayo waqtiga aad kusoo noqonaysid waa waqti sii socod kaliya safarka la sheegayo waa sii socod bay intaa ku tahay shaaficiyada marka la joogo waxa weeye sii socod bay ku tahay tan ugala leeyahay salaad 4 ragcadood ah inay ku beegan tahayna haddii salaada 4 ragcadood aad tukanaysaa ay kuu soo gashay adiga oo aan safarka weli bilaabin oo deegaankaagii jooga 4 ragcadood waad dhamaystiraysaa waa in salaadu waqtiga ay soo gashay intii aad safarka ku jirtay ay tahay waqtiga aad tukanaysaana intii ay safarka aad ku jirtay ay tahay haddii adigoo aan tukan
salaadii kuu soo gashay magaaladaadii aad tagtid oo tiraahdo waan tukanayaa 4 ragcadood waad dhamaystiraysaa gaabini ma jirto gaabintu markaa waxay ku xidhan tahay inta safarka aad ku jirtay kaliya ayay ku xidhan tahay waayahay wa alla ya'tamma waana inaanu ku xidhan oo ku daba tukan bimuqiimin qof nagi oo deegaankiisii jooga haddii uu ku tujiyo qof deegaanka aad safarka ku ahaydee maraysay markaa isagu deegaan ku ah haddii uu ku tujiyo dee isagu salaadii ugu dhamaystiraya adna waad la dhamaystiri laakiin idinkoo musaafir haddii aad isku daba xidhateen oo isla tukateen waxa weeye salaadii waxa weeye waad wada gaabinaysaan weeye waaye wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qofka safarka waxaa u bannaan an yajmaca inuu kulmiyo bayna aduhri salaada duhur iyo walcasri salaada casr inuu kulmiyo oo markaa ama waktigii jamcu taqdiim intuu sameeyo waktigii duhurka uu isugu soo raro oo duhur waktigiisii uu wada tukado ama jamcu taakhiir inuu sameeyo oo markaa waktigii casrka uu wada tukado waxaana wanaagsan in haddii uu awoodayo jamcu taqdiimka uu sameeyo sababtoo ah naftu waqti ay gaari doonto ilaahay baa og salaaduna waa dayn ilaahay kugu leeyahay haddaad awoodid daynta ilaahay wa daynu llaahi axaqu an yuqda daynta ilaahay baana markasta mudan waxa weeye in la gudo haddaad awoodid inaad hore isu dhaafisid ayaa wanaagsan weeye laakiin labaduba way ku bannaan yihiin wa bayna almaqribi waalcishaa salaada maqrib iyo salaada cishaa'igana wuu jamcin karaa oo ama xagga waqtiga maqribka ayuu isugu soo rari karaa ama waxa weeye xagga cishaa'iga ayuu isugu soo rari karaa marka uu maqrib isugu soo raro waa jamcu taqdiim marka uu cishaa'iga isugu rarana waa jamcu taakhiir ayihimaa shaaa kii uu doono ayuu markaa samayn karaa weeye kii uu doono ayuu samayn karaa shuruudda la jamcinayo ama lagu jamcinayo culimmadu waxay tilmaamaan 3 arrimood inay tahay kow waxa weeye in waqtiga duhurku uu waqtiga casarka hor bilaabmo maqribna qabla alcishaa uu bilaabmo tusaale ahaan meesha aad ku socotid haddii waqtigeedu uu kala horeeyo ama inta aad sii socotidba waqtigu sidaa isu bedelayo waxa weeye dee waxay noqonaysaa jamcintii way adkaanaysaa waayo waxaa laga yaabaa 2 magaalo tusaale ahaan hadda magaalo waxaan malaya ruushka ku taalla iyo maraykanka ku taalla oo waxaa jira 21 saacadood ay u dhaxayso 4 kilomitir waa magaalo labada magaalo u dhaxeeya laakiin xagga waqtiga 21 saacadood baa u dhaxaysa waana 2 magaalo oo loo kala socon karo loo kala lugeyn karo magaalana maanta hadaad ka tagtid waxaa tegaysaa daraad oo kale ayaa dib ugu noqonaysaa marka haddii waqtigu sidaas oo kale isu bedelayo waxa weeye waqtiga hore ayaad wada samaynaysaa weeye jamciga waqtiga hore ayaad samaynaysaa ta labaad waxa weeye shardiga labaad waxa weeye niyadu inay ku xidhan tahay bilowga salaada haddii salaad aad iska xidhatid adigoo aan waxba niyeysan dabadeedna dhexdii aad ka xasuusatid inaad safar ahayd oo aad tiraahdo salaada maya 2 ragcadood baan tukanayaa salaadaasi sax ma aha waa in niyada ah inaad salaada qasrisid ama aad jamcisid ay bidaayat as-salaah ay kula socotaa takbiirat al-ihraam ay kula socotaa weeye takbiirat al-ihraam ay kula socotaa weeye shardiga saddexaadna waxa weeye labadii salaadood inay israacaan marka aad jamcinaysid oo aanad waqti badan u dhaxaysiin duhur baa tukatay isla markiiba casarna inaad waxa weeye yani aanad u dhaxaysiin masaafo iyo waqti dheer curfiga marka loo noqdo ama loo eego waxa weeye waqti uu qofku seexan karo oo kale aan loo dhaxaysiin weeye wayajuusu waxa u bannaan lilxaadiri qofka isagu nagi oo deegaankiisii jooga fi lmatari waqtiga roob da-ayo an yajmaca baynahumaa inuu isna jamci sameeyo kii hore musaafir buu ahaa
kanina deegaankiisii buu degan yahay, laakiin roob baa yimi. roobkaasi waa in roob markaa dee darar laga baqayo, waxyeelo laga baqayo uu yahay ya ama baraf baaba da-ayba. wixii cimiladii oo isbedeshay ama waxyeelo laga baqayo, dadka muslimiinta in loo fududeeyo, jamcina loo sameeyo oo jamaacadii jamci loo sameeyo ayaa wanaagsan weeye. nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugnaatay in uu jamciyey 2 salaadood iyadoo aan roobna jirin, baqdinina jirin, wax dhibaataa oo jirina aan jirin magaalada Madiina. wuxuu u sameeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam si aanay ummaddu ixraaj uga dareemin arrintan oo ay fududayn tahay. arrinta waxaad moodaana xigmadda ku jirta inay tahay in markasta la muraaceeyo oo la eego dadka jamaacada ah, wixii u dhib yaraynayana la sameeyo. waqtiyadan dambe waxaad moodaa dadka qaybtood intay tawasuc ku sameeyeen, haddii shuux yari soo daataba salaada inuu jamcina baa la odhanayaa. waxaad moodaa xoogaa in tawasuc lagu sameeyey. waxaa wanaagsan shayga in la qiimeeyo, wixii la isleeyahay dadka waxyeelaa kusoo gaadhaysa, way ku kufi karaan, dhibaataa uga iman karta, ha la jamciyo. laakiin in caado laga dhigtana rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo salafka toonna kama sugnayn. in wax yar oo markaa dadku aanay wax dhibaataaba u aragna loo sameeyana kama sugnayn. marka in qiimeyn qofku uu ku sameeyo ayaa loo baahan yahay. faslun, kanina wuxuu baab iyo fasli u yahay fii salaati اljumucati, salaada jumcaha. salaada jumcaha waxay ka mid tahay jumcuhu maalmaha ciidda nabigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay oo ciidul usbuuc inuu yahay uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay. wuxuuna ka mid yahay ijtimaacaadka iyo kulamada dadka muslimiintii ay kulmaan oo isu yimaadaan. waa maalin dadka muslimiintu isbaraarujiyaan, khatiibku ka hadlo wixii usbuuca baahiya oo bulshadaas ka dhex jiray oo markaa diin ahaan ay u baahnayd in laga tawjiihiyo ayay maalintaasi tahay. culimmadu waxay tilmaameen inay waajib tahay salaatu ljumuca, inay waajib tahay ayay culimmadu tilmaameen. nabiguna sala allahu calayhi wasalam inuu ka tegay waqtigiisii salaad jumce iyadoo la joogo oo wax duruufoo jira aanay jirin inuu ka tegay lama sheegin, salafkana lagama sheegin. marka in la ilaaliyo salaada jumcaha iyo imaanshaheeda iyo ku tukashadeeda waa lagama maarmaan. wa sharaa'iطu wujuubi اljumucati, shuruudaha salaada jumce ay ku waajibto 7 ashyaaa, 7 arrimood weeye. 7 arrimood haddii la helo salaadii jumcaha qofka waajib ayay ku noqonaysaa, inuu jamaacada la soo gutana loo baahan yahay. ta koobaad waxa weeye alislaam, qofku inuu muslim yahay. gaalkii salaad jumce waajib kuma noqonayo, inkasta oo furuucu shariica gaalada lagula hadlay oo aynu hore usoo tilmaanay salaada markii aynu bilowgeedii ka hadlaynay, in la odhanayo maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin ay odhanayaan. culimmaduna ay yidhaahdeen furuucu shariica waa lagula hadlaya laakiin lagama aqbalayo. marka waa shuruudii ay ku waajibaysay qofkii laga aqbalayay. waxa weeye islaamnimaa kow ka ah. 2 albuluuq, qofku inuu qaangaadh yahay. halkaa waxaa ku baxay ilmihii yaraa ama sabigii aan wax kala soocayn, isaga waxa weeye markaa salaad jumce kuma waajibin weeye. waalcaql, qofku inuu caqli leeyahay oo wax kala garanayo ayaa shardiga 3aad ah. qofkii markaa waalaa oo caqligiisu aanu joogin waxa weeye isna kuma waajibin. 3daa shardi waxaa la yidhaahdaa shuruud الtakliif. shuruud الtakliif inta badan cibaadooyinka 3daa shardi baa asaas u ah, markaasaa wixii kale oo dhan lagu sii daraa. alislaam, alcaql, altamyiiz. 3daa marka horaaba la tilmaamaa weeye, waayo iyagaa asal u ah waxa weeye cibaadooyinka o dhan. ama albuluuq. alxuriya baa ka mid ah, qofku inuu xor yahay. addoonkii ma lagu leeyahay salaad jimce? maya, kuma waajibin.
qofku inuu xor yahay ayaa ka mid ah. shardiga shanaad waxa weeye adhukuuriya, qofku inuu lab yahay. gabadhii ma lagu leeyahay? maya, salaad jumce laguma laha. salaad jumce laguma laha dumarkii weeye, oo waxa weeye iyagu gurigooda iska joogayaan, gurigooda ku tukanayaan. hadday masaajidka iyo jamaacada lasoo tukadaana waa khayr iyo wanaag weeye. wasixa, shardiga lixaad waxa weeye qofku inuu caafimaad qabo. qofkii bukaanka ahaa ee xanuunsanayay ee aan awoodeyn, isna salaad jumce lagama rabo weeye. waayahay. walistiitaan, shardiga toddobaad waxa weeye waa qofku inuu negi yahay oo deegaankiisii joogo, deegaan uu degan yahay. dadkii reer baadiyaha ahaa ee markaa meelaha iska reer guuraaga ahaa iyo dadkan iminkaba safarada joogtada ku jira ee degan baabuurta lagu jiido, dadkan degan ma caravan baa la yidhaahdaa, ma garanayo waxaas, baalaan la jiito dadka meelaha marba meel dhigta, dadkaasi deegaan ma degana. qofku waa in deegaan rasmiya oo uu degan yahay uu jiro. qofka iska wareegaya oo marba magaalo iska tagayo isaga wareegaya waxa weeye salaad jumce kuma waajibayso. marka kuma waajibayso caruurtii, dadkii waalwaala kuma waajibayso, adoomihii kuma waajibayaan, dumarkii kuma waajibayso, dadkii xanuunsanayay kuma waajibayso, qofkii musaafirka ahana kuma waajibayso, ama dadkii garab raratada ahaa ee iska meelaha iska soconayay. intaaba salaada jumce ayaynu ku tilmaanay. waxaan halkan tilmaamaynaa inta aanan u gudbin shuruud waxaa jirta shuruud sixa la yidhaahdo. kuwa hore waxay ahaayeen shuruud lwujuub, yay ku waajibaysaa, shuruudda looga baahan yahay ayay ahayd. waxaa jirta shuruud waxa weeye ay ku ansaxayso oo salaadii jimce ay markaa qofka lagaga aqbalayo. wa sharaa'itu ficliha halaatha, shuruudda samaynteeda ay in samayntii aad samaysay salaadii jumce aad tukatay lagaa aqbalo oo jumcanimo lagaaga aqbalo, waxa weeye waxay ku xidhan tahay 3 shardi. ka koowaad waxa weeye an takuuna albalada misran aw qarya, meesha aad joogtaa inay tahay magaalo ama tuulo. qofka baadiyo jooga isaga salaad jumce lagama rabo. waa meel la degan yahay oo culimmadu waxay ka soo qaadaan halkaa meel dad guruub ahi ay kasoo toosaan oo aanay ka guurin dayr iyo xagaatoonna, yacni xilliyadii sanadkii kala duwanaa aanay midnaba ka guurin, meesha ay degan yihiin. waa in meel noocaasa ay tahay. meel noocaasa waa inay tahay weeye oo ay wadan u tahay ama deegaan u tahay. 2 wa an yakuuna waa inuu noqdaa alcadadu, tiraduna waa inay noqotaa 40 qof min ahli ljumcati, dadkii jumcuhu ku waajibay ah. dadkii jumcuhu ku waajibiyay ahaayeen waa raggii, waa dadkii aan xanuunsanayn, waa dadkii muslimiinta ahaa, waa dadkii deegaanka deganaa, waa dadkii aynu tilmaanay caqligii iyo qaangaadhkaba u saaxiibka ahaa. wakuka dadkii aynu soo tilmaanay waxa weeye oo 40 qof ahi waa inay meesha ku tukan karaan. waa shardiga labaad weeye. 40ka culimada muxaqiqiinta ahi way ka hor yimaadeen, waxay yidhaahdeen ma hayno daliil sharciya, xadiid iyo aayad toonna tiro ku xadidaya in markaa dadka muslimiintii ay 40 ahaadaan. ma jiro xadiid sariix oo sidaa tilmaamaya. bal waxay yidhaahdeen wax taa kasoo horjeedaa jira oo nabiga sala allahu calayhi wasalam isaga oo magaalada madiine ka khudbadaynaya ayaa waxaa soo galay magaalada madiina awr markaa safar ahayd oo rarnayd. dabadeedna sanqadhii iyo durbaankii la tumayay awrta ayay dadku maqleen. nabiga sala allahu calayhi wasalam oo khudbaynaya ayay wada yaaceen oo awrtii ku carareen oo u tagin. ilaahay subxaanahu watacaala wuu canaantay dadkii muslimiinta ahaa ee sidaa sameeyey. waidaa ra-w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima. ilaahay subxaanahu watacaala saas ku tilmaamay.
markay arkaan ganacsi ama lahwi iyo wax markaa dadku ay ku madadaashaan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima way u yaacayaan oo waxay kaa tagayaan adigoo taagan saxaabadii sidaa lagu canaantay mucdamka dadkii masaajidka ku tukanayay bay ahaayeen waxaa la tilmaamaa dadkii kusoo hadhay nabiga sala allahu calayhi wasalam 12 qof inay ahaayeen nebigu muu odhan tiradii khudbadda loogu talagalay maanta ma buuxdo waxay odhan jireen koromkii ma buuxo tiradii loogu talagalay ma buuxdo waxa weeye hala joojiyo khudbaddii lama odhan khudbaddii waa la sii wada taa culimmadu waxay ka qaateen haddii 12 aanay khudbaddu ku ansaxayn oo tiro ka badan loo baahnaa nabigu wuxuu odhan lahaa sal slam salaad duhur aynu tukanno waa khudbaddii way naga jabtay marka halkaa waxay ka soo qaateen dee 12kaaba waa loo khudbadeeyey 12kaaba waa loo khudbadeeyey tirada 40ku xagee bay ka timi xadiid kacab ibn malik radi allahu canhu ardaah uu warinayo oo saxiix abi daawuud ku sugan ayaa waxa uu yidhi aabbahay marka aan arko oo uu maqlo adaanka salaada jumce wuxuu u ducayn jiray saxaabigii la odhan jiray ascad ibni zuraara raxmat ullaahi calayhi oo ka mid ahaa saxaabadii reer madiine ka mid ahaa dabadeedna waxaan idhi aabba maalin kasta waad u ducaysaa jumco kasta waad u ducaysaaye maxaa dhacay wuxuu yidhi sababtu waxa weeye ascad wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee noo kulmiyey salaad jumce waxa weeye magaalada madiina ayuu ahaa dabadeedna waxaan ku idhi maalintaa salaadii jumce aad tukanayseen imise qof baad ahaydeen wuxuu yidhi qiyaas ahaan ilaa 40 aanu ahayn maadaama ay 40 halkaa ku tukadeen ayay waxay ka soo qaateen waxa weeye in 40 ay ku ansaxdo dee 40kani ka badan haddii heli lahaayeen soomay tukadeen ka yar hadday ahaan lahaayeenna soomay tukadeen labadaba way tukan lahaayeen wax ku xadiday markaa in tiradan 40ka ay meesha ku jirto ma jirto weeye marka shaaficiyada laakiin madhab ahaan waxay qabaan in 40 qof iyo wixii ka badan salaad jumca ay ku ansaxayso waxaa meesha ku jirta culimmadu ay ka doodaan haddaba tirada ugu yaree la odhan karaa waa maxay culimmada qaybtood waxay yidhahdeen dee 3 qof qofkii imaamka ahaa iyo qofkii aadaanka samaynayay iyo qof ku daba tukada haddii 3 qof la helo waa jamaaca waxaa la yidhi walmay salaada jumcuhu salaad ka qiimo badan weeye waa ciidii usbuuca tirada aynu uga badino ilaa layskuma waafaqin wax tiro ah oo go-an laakiin wixii jamaaco la odhan karo oo markay masaajidka kasoo dareeraan la odhan karo gruub dhan baa soo dareeray salaada jimcuhu way ku ansaxaysaa wax tiro gaara oo ku xidhanna ma jirto wey laakiin shaaficiyadu madhab ahaan waxaynu u maraynaa inay qabaan 40 qof oo ahluljumco ah inay ku ansaxdo 3 wa an yakuuna alwaqtu iyo waqtigii inuu yahay baaqiyan mid wali markaa jooga waqtiga salaada jumcaha la tukadaa waa waqtiga salaada duhurka la tukado duhurka waqtiga zawaalka lama ogola oo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaami jiray cadceedu bartamaha markay joogto inaan la tukan laakiin la yar qaboojiyo oo harku inta uu ka baxayo la sameeyo salaada jumcaha waxaynu hore usoo tilmaanay inay ka duwan tahay waqtigaa zawaalka la bilaabi karo casar inaanay gaadhin unbaa la rabaa salaada jumcaha la tukanayo casar inaanay gaadhin waqtigii duhurka ay markaa lagu tukado weeye fain kharaja alwaqtu haddii waqtigii salaada duhur uu baxo oo waqtigii casar uu soo galo aw cudimat ishuruud ama shuruuddii aynu soo tilmaanay wax ka mida la waayo sulliyat waxaa la tukanayaa duhuran duhur baa la tukanayaa oo 4 ragcadood baa la tukanayaa 4 ragcadood ayaa la tukanayaa weeye wa faraa'iduhaa faralka ay leedahay salaada jumca 3 waa 3 weeye ka koobaad khudbataani waa 2 khudbadood oo yaquumu fiihimaa uu istaagayo wayajlisu baynahumaa dhexdoodana uu fadhiisanayo waa 2 khudbadood oo istaag uu khatiibku ku akhrinayo 2 khudbadood dhexdoodana uu fadhiisanayo weeye inta طمأنينada 2 sujuudood dhexdooda oo kale ah ayuu yara fadhiisanaya hadiiba khatiibku aanu fadhiisan kareyn fadhiguba dhibayo muxuu samayn culimada qaybtood waxay tilmaameen
hadduu yaro jiifsado xitaa way ansaxaysaa laakiin istaagii inuu ku taagnaado unbaa la diidayaa waa inuu hoos uga degaa weeye hoos waa inuu uga degaa waaye khudbadda culimada shaaficiyadu waxa ay yidhaahdaan arkaan bay leedahay ama tiirar bay leedahay waxaad arkaysaa khudbadaha qeybtood oo khatiibku intuu istaago aanu qaala allahu iyo qaala rasuulba odhan inuu iska sheekeynayo khudbaddu carabi iyo keliya miyay ku baxdaa mise english way ku baxdaa dood dheer baa ka taagan ama luuqado kale ma lagu akrin karaa dood dheer baa ka taagan culimada qeybtood waxay aaminsan yihiin luqad alqur'aan luqa alcarabiya in ay khudbadii ku ansaxdo waxay arrintaa daliil badan usoo qaataan dadka muslimiinta ahi waxa ay diintu gaadhay dadkii acaajimta ahaa furus baa la gaadhsiiyey diinta ruum baa la gaadhsiiyey ilaa yurub bay ka dhacday dadkaasi luuqado kale oo ay ku hadlaan bay lahaayeen lama soo sheegin meelaha meel luuqadii khudbadda la bedelay oo carabi waxaan ahayn lagu akhriyey carabi waxaan ahayn meel lagu akhriyey lama soo sheegin carabiga in laga wada tago oo khudbadda dhammaanteed luuqad kale laga dhigo xaqiiqatan waa arrin xoogaa dib u eegis u baahan oo qofku inuu dib u eego u baahan culimada tilmaamaysa khudbadda in lagu akhriyo carabi luuqad aan ahayn waxay daliishanayaan wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahum khudbadda hadafkeedu waa dadkani inay ku fahmaan haddaanay ku fahmayn khudbadda macnaheedii o dhan baa meesha ka baxaysa ayay leeyihiin waa qodob jira oo loo baahan yahay laakiin waxaa wanaagsan in la isku dhexdhexaadiyo oo khudbadda qeybna carabi laga dhigo qeybna dadka loo sharaxo oo markaa luuqadda ay fahmayaan loogu sharaxo laakiin in carabigii oo dhan iqsaa lagu sameeyo meesha laga wada saaro waxa weeye arrintaasi arrin qurux badan ma aha culimo badanina dood bay ka qabaan oo markaa waxa weeye waabay diidaan waaye shaaficiyadu waxay tilmaamaan markaa khudbadda 5 rukni ayay ku ansaxdaa 5 rukni ayaa loo baahan yahay kow in ilaahay la mahadiyo in alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu in la akhriyo siiqadii la doonaba ha loo akhriye labo الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إن لقوا صليوا إن خطبة صلي النبي لا يضحي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سئ النبي صلى الله عليه وسلم لو صلي وصلي النبي صلى الله عليه وسلم لما رو سدح خطبة دحدة إذا إن لا يصدر دارمو الله كعبسي أوصيكم بتقوى الله إن لا يسيدا هذو وسدح لفظ قار أهي مجرو لكن الله كعبسي واحد الماما إن لا يصدر دارمو أفر آيات قرآن أنا هاتي دليل إن لغو شيغو خطبة سببتو أدي هذا اسكا سعونا كلمة نقون كرت خطبة هذا الآن قال الله قال الرسول من بلاهين من نقون كرتو مركا آياتنا هنقوتي إن دليل لغو شيغو أو مركا ولو آيات قرآن إن لا أخريو شن إن دتك مؤمنين تالو دعيو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن مسلمين تلو دعيو شن تعتير بي شافعية وشيغان إن خطبة leedahay oo ay loo baahan yahay khatiibku inuu sameeyo in badan oo kamid ah hadda waxaad moodaa dadku waabay ka tagaane waaye marka waxaynu nidhi faraa'ida ay leedahay khudbadaasi waxa weeye waa 2 khudbadood fadhi baana u dhaxeeya waa kow labo wa an tusalla wa in la tukado rak'atayni 2 ragcadood wa in la tukado fi jamaacatin waliba jamaaca lagu tukado 2 ragcadood oo waxa weeye salaadii jumcaah jamaacada waa inay noqotahay qof aan loo tukan saddexda shardi baa marka shuruud u ah oo loo baahan yahay in qofku uu fuliyo waaye وهيئاتها 4 خصال هيئتها iyo sunanta dhamaystira khudbada iyo salaada jumca waxa kamid ah waa 4 arimood kow الغسل وإن لو سو قبيستو صلاة الجمعة marka la imanayo qofku waa inuu soo maydha culimada qaybtooda waxa bay ka dhigaan inay waajib tahay
salaada jumce la-aanteed aanay ansaxayn. horeyn waxaanu usoo tilmaanay cumar ibn khataab radia allahu canhu wa ardaah oo isaga oo khudbadda akhrinaya uu soo galay cuthmaan ibni cafaan, dabadeedna uu ku yidhi cuthmaanow waad soo habsaantay, maxaa kugu dhacay? uu yidhi suuqa intaan ku jiray baan isilaaway oo dabadeedna waan soo weysiistay, sidaasaan kusoo galay. markaasuu mahabsaamidii khudbadda aad ka soo habsaantay iyo salaadii jumce waxaa ku dartay inaanad soo maydhan. yacni maydhashadu inay laasim u tahay khudbadda iyo salaada jumce ayuu u arkayey, sida ay culimmada qeybtood ka qaateen weeye. marka in maydhashadaas aan la fududaysan weeye, in maydhashadaas aan la fududaysan weeye oo maalinta jimce qofku uu usoo maydho. 2 wa tandiifu ljasadi, jidhka in la nadiifiyo. jidhka in la nadiifiyo ayaa iyana ka mid ah, jidhka in la nadiifiyo ayaa ka mid ah, sidii waxyaabihii urta keenayey, haddii waxyaabihii kilkilooyinka iyo lagu nadiifin jiray la marsado, haddii cadar iyo wax lamida la marsan karo, in markaa la nadiifiyo jidhka oo aan ur samayn. wa lubsu thiyaabi lbiidi, waxaa ka mid ah sunnooyinka jumcaha in dhar cadcad loo soo xidho, in dhar cadcad loo soo xidho ayaa ka mid ah, waayo waa afdal thiyaab, waa dharka ugu wanaagsan nabiguna sal ly slam uu ugu jeclaa. wa akhdu dufri watatayub, in cidiyihiina lasoo jaro, udug iyo udgoonna markaa lasoo marsado ayaa iyana ka mid ah. intaasba waxay ka mid yihiin waxa weeye waxyaabaha sunnooyinkeeda ka mid ah. wayustaxabu waxaa sunne ah alinsaatu in la aamuso fii waqti اlkhudbati, khudbadda waqtigeeda. halka uu leeyahay wayustaxabu, waxaa xoog badan. nabigu salى اllahu alayhi wasalam waxa uu yihi qofka walaalkii la hadla ama ku yidhaahda aamus faqad lagaa, lagwi buu sameeyey. bal qofka waxa weeye xasaa iyo ciid ku ciyaara ama mobel lasoo baxa oo ku ciyaara, khudbadiisa way jabaysaa. waxa wanaagsan qofku in aanu ku hadlin inta khudbadda lagu jiro oo uu aamuso, waanay xoog badan tahay, khudbaddayna waxyeelaysaa, khudbadda ayay waxyeelaysaa. waman dakhala, qofka soo gala, walimaamu yakhtub, imaamka oo khudbadaynaya, sallaa rakcatayni, 2 ragcadood buu tukanayaa, khafiifatayni oo fudfudud, huma jalasa, waanu fadhiisanayaa. halkan su-aal baa taala, aamuska khudbadda inta la wado ma lala hadli karaa khatiibka laftiisa? maxaa daliil loo hayaa in khatiibka lala hadli karo? maa sha allah, nabiga salى اllahu alayh wasalam waxa aynu soo marnay in nin uu usoo galay, inaan hore usoo tilmaamay ma hubo, inuu nin usoo galay salaatulistisqaana waa ugu tegi doonaa, inuu nin usoo galay iyadoo la khudbadaynayo, dabadeedna uu yihi halakat ilamwaal, xoolihii baa baaba-ay, bini aadamkii baa baaba-ay, dhibaataa dhacday, ilaahay noo bari inuu na waraabiyo. nabigu sal slam uu duceeyey, muu odhan maxaad ugu hadashay khudbaddii, waxbaad yeeshay, muu odhan. wiigii dambe ama usbuucii dambe, jimcihii dambe, iyadoo aan roob kala qaadina uu sidoo kale usoo galay. marka halkaa culimmadu waxay ka qaateen khatiibka wax waa la weydiin karaa, su-aal waa la weydiin karaa, waa lala hadli karaa, istifsaar halkaa sheekh ku celi, halkaa maanaan fahmin ku celi waa la odhan karaa, halkaa noo yar waadixi waa la odhan karaa, masale waa la weydiin karaa, waa qofku inuu khatiibka la hadlo waa la ogol yahay. laakiin jamaacada dhexdeedu xitaa qofku hadduu hadlayo agtaada, aamus haddii aad tidhaahdid, waxa weeye khudbadaadii baa aada waxyeelaysaa, ma wanaagsana. markaa inaad iska ilaalisid weeye wixii hadala oo aan ahayn in imaamka lala hadlo weeye, in imaamka lala hadlo wixii aan ahayn. waxaynu ka soo reebeynaa aamuska haddii khudbaddu inta ay socoto cid khatar kusii dhacaysa la arko, khatartaana aan hadal ku celin karo waan ku celinaya, khudbadeedina waxba ma noqonayso. qof indhala baad aragtay oo soconaya oo god kusii dhacaya, ka joog god weeye waad odhan kartaa. baabuur qof sii gelayaad aragtay, ka joog waad odhanaysaa waddada, waad la hadli kartaa. qof bahal ku soo socdo baad aragtay, waad u digi kartaa oo waad la hadli kartaa. marka haddii
taasoo kale waad samayn kartaa wey, waad samayn kartaa. faslun kanina wuxuu baab u yahay fii salaati alciidayni, salaada labada ciidood la tukado ayuu baab u yahay. wa salaatu alciidayni, salaada labada ciidood sunnatun mu'akada, waa sunne aada loo adkeeyey sunnanimadeeda. wahiya salaada ciidu rakcataani, waa laba ragcadood. nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay haddii aynu nahay dadka muslimiinta ah waxaynu leenahay laba ciidood, ciidu lfitri wa ciidu ladxaa. ciid aan taa ahayn ma lihin. waqtigan aynu ku jirno waxaad moodaa waliba meelahan aynu joogno ciido badan baa ciyaalka loo qurxinaya, oo ay ka mid tahay halloween, ay ka mid tahay christmas, ay ka mid tahay ciido badan oo maa anzala allahu biha min sultaan. waxaa wanaagsan in ubadka lagala dagaalamo waxyaabaha waqtiyadaas, waxyaabaha lagu soo jiidan karo ee nacnacyada iyo wax la midka ah. waalidku haddii uu awoodo wixii ay banaanka ka heli lahaayeenba guriga inuu u keeno, u sheego inaan ciid ahaan loo siine anigu aan kuu gartay, inaanay waxba uga baahan gaalada iyo waxay markaa kusoo jiitaan. ciidaheennana loo weyneeyo, ciidaheenna in loo weyneeyo ayaa aada u wanaagsan weeye. salaada labada ciidood la tukadaa waa sunno weliba aada u xoog badan. dadka qeybtood maalinta ciidda waxaad moodaa in la yidhi iska seexdaba, waa maalinta la seexdaba. laakiin nabiga sala allahu calayhi wasalam wax aada u weyn buu ka dhigay ciidaha. dadka muslimiinta ah inay soo wada baxaanna wuu tilmaamay. xitaa la yidhi dumarkii markaa qolkooda ku jiri jiray oo aan banaankaba usoo bixi jirin ha la soo saaro oo banaanka hala keeno. gabadhii aan tukanayn ee dhiigga caadada qabtay ayaa la yidhi hala keeno musallaha. sababtu waa maxay? sawaadka iyo markaa hugulka muslimiinta iyo badnaantooda ayaa la muujinaya wey. waa maalin isticraad iyo markaa muruqyo muujin dadka muslimiinta iyo badnaantooda iyo tiradoodu ay muujinayaan weeye maalmaha ciidu. wahiya ciidahaasi ama salaada ciidu rakcataani, waa laba ragcadood. yukabiru fi luulaa, wuu takbiirsanayaa ragcadda hore 7 jeer, siwaa takbiirati lixraam, allahu akbar tii lagu xidhanayay aanay ku jirin. masaladaas iyo wafi thaaniyati 5 siwaa takbiirati lqiyaam, ta labaadna 5 allahu akbar lagu soo kacay aanay ku jirin ayuu tilmaamayaa. culimadu way ku kala aragti duwan yihiin. waxay leeyihiin 7 la takbiirsanayo qeybtood 7 allahu akbarti lagu xidhay way ku jirtaa, waa allahu akbarti lagu xidhay iyo 6 kale. tan kalena waa tii lagu soo kacay iyo 4 kale. culimada qeybtood baa sidaa qabta. qofka markaa isagu qaata in uu 7 salaada tii uu ku xidhay ay ku jirto uu sameeyo ku tukada, iyo qofka 8 ka dhiga 7 iyo markaa allahu akbarti uu ku xidhay ku jirta, qofka labada qofba way saxan yihiin weeye. waana laba maslak ama laba dariiqo oo ay culimadu tilmaameen oo axaadiista laga fahmay weeye. marka allahu akbar taas sidaa ayuu u odhanaya. allahu akbarta dhexdooda waxba la akhrinayaa maya, wax la akhrinayo inta aad takbiirtaa wadid waxa weeye ma jirto weeye. waaye wayakhtubu wuu khudbadaynayaa bacdahumaa, takbiirooyinka ama labada ragcadood ee la tukaday kadib wuu khudbadaynayaa. imaamku wuu khudbadaynayaa weeye. waxaan baraarujin lahaa marka ijtimaacaadka iyo ciidda la imanayo dumarku inay isa soo cadriyaan lama ogola. bal salaadaha iyo masaajidada iyo goobaha marka la imanayo gabadhu inay cadar iyo wax udgoon ka fogaato weeye. waa fitna. abu hurayra radi allahu canhu ardaah waa wuxuu arkay gabadh isa soo cadrisay, markaasuu yihi xagee baad ku socotaa? waxaan filayaa inuu abu hurayre ahaa ama cabdillahi bin mascuud mid buu ahaa. xagee baad ku socotaa? markaasuu tiri masaajidka. markaasuu yihi noqo. miyaanad maqal nabigu sal slam inuu yihi gabadha isa soo cadrisa
si ay raggu udugeeda u helaan fahiya zaaniya waa gabadh zinaysatay dabadeedna way noqotay gabadhii marka waxay ku tusinaysaa gabadha inaan la ogolayn inay isa soo cadriso oo isa soo udgoonaysiiso diibkii aan sheegaynina ragga ayuu gaar u yahay weeye marka banaanka loo baxayo wayakhtubu bacdahumaa labada ragcadood kadib khatiibku wuu khudbadaynayaa khudbatayni laba khudbadood yukabiru fi luulaa 9 ta hore 9 jeer buu allahu akbar odhanayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar 9 jeer buu odhanayaa wa fi thaaniyati khudbada labaad ee fadhiga marka uu ka soo kacona 7 7 jeer ayuu odhanayaa 7 jeer ayuu odhanayaa weeye waxaan ka soo tegay salaadaha labada ragcadood ah culimadu waxay ku tilmaamaan in lagu tukanayo imaa labada suuradood oo ah iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar iyo waxa weeye suuratu qaaf in la akhrinayo ama labadii suuradood ee jumcaha la akhrinayay oo ah suuratu laclaa iyo suuratu lghaashiya in la akhrinayo ayay culimadu tilmaamaan waaye marka khudbadda marka uu saas u akhrinayaa takbiiraha ayuu ku akhrinayaa khudbadda waxaa sunno ah ciidda iyo mawsimkana in dadka lagala hadlo waxa weeye wixii wanaaga ee markaa muslimiinta la farayo maadaama ay tahay ciid sanawi ah maadaama ay tahayna munaasabadda looga faa'iidaysto oo markaa dadka lagu wacyigeliyo waaye wayukabbaru ama wayukabbiru waxa uu takbiirsanayaa qofku min guruubi shamsi laga bilaabo cadceed dhaca min leylati lciidi habeenka ciidu soo gelayso ilaa an yadkhula alimaamu fi salaah waa ciidii ciidulfitri ilaa imaamku uu salaada uu soo galo takbiirtaasi way soconaysaa ma aha yani waa takbiir mutawaasila weeye takbiir mutawaasila weeye oo qofku uu wadayo wa fi ladxaa ciiduladxaana khalfa asalawaati almafruudaat salaadaha markaa faralka kadib baa takbiirtaasi soconaysaa min subxi yowmi carafa laga bilaabo maalinta carafa subaxnimadeeda waxaan leeyahay waxa weye min subxi yowmi carafa subaxnimada maalinta carafa ila alcasri min aakhir ayaami tashriiq 3 maalmood ee hilib wadhashada la yidhaahdo ama ayaamu tashriiq maalinta ugu dambeysa salaadeeda casar marka takbiirtaasi waa takbiirta ugu dheer oo soconaysa waxa ay ka soo qaateen culimadu walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun takbiirtaasi inay saa u soconaysay oo aayaadkii xajka markii la tilmaamayey ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay halkaa markaa waxaynu ku aragnay salaadihii ciidda iyo qaabkii loo tukanayey siiqada ugu siiqooyinka takbiirtu aad bay u kala duwan yihiin waxaa ka mid ah siiqadan aynu tilmaamayna allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kafiira wasubxaana allahi bukrata waasiila laa ilaaha ila allahu waxdah sadaqa wacdah ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سيقوينك أيا كمده سيقوينك وحويه تكبيرة اللو سمين شريوي فصل كان فصل إيباب حؤيهي في صلاة الكسوف والخسوف صلاةها قرح مدوباتك إيديح مدوباتك حقيقة آد بمهم أتهي in dadka xufaada ahi ay bartaan dadka xufaada ahi inay bartaan salaadaha iyo waxyaabaha fiqhu salaah ku saabsan si gaar ah inay u bartaan ayaa muhiim ah waxay ku dhacday waqtigan dhalinyarada ahaano quraanka xifdisan habeen cadceedi dayax madoobaaday oo aan masaajidka ka maqlay salaatul jaamica waan soo orday masaajidkii baan imi salaad baa la tukanayaa baa laygu yidhi waxaan idhi see loo tukanayaa sidii caadiga ahayd way ka duwan tahay la yidhi qaab kale loo tukanaya ma garanayaan idhi qur-aankaygii waxay noqotay inaan dib ula hadho oo qof kale soo baxo haddii markaa qofku uu
dee aqoon fiican u lahaan lahaa axkaamta noocaasa ee ku saabsan salaatu lkhusuufi walkusuuf dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadka iyo qaababka loo tukado waxa weeye dee qofkaas wuu samayn lahaa weeye marka aad bay muhiim u tahay wa salaatu lkusuufi salaada dayax madoobaadku labada magac wayna ku wada dhacaan alkhusuuf iyo alkusuuf kusuuf waa la isku yidhaahdaa sida duhur iyo casar الظهران oo kale la isugu yiraahdo Abu Bakar iyo Umar oo kale al-Umaran la isugu yiraahdo waa caadi waa min baab taqlib baa la yiraahdaa wa salatu al-kusufi salada dayax madoobaadka iyo qorax madoobaadkuba sunnatun muakkada sunna la adkeeyay weeye waqtigeeduna waa waqtiga ay cadceedu madoobaato ama dayuxu uu madoobaado sababta ay leeyihiinna waa sabab ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar ah nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay waxaa arrin carabtii horena ay aaminsanaayeen oo ahayd haddii ay madoobaadaan ama qof weyn baa dhintay ama qof weyn baa dhashay bay odhan jireen biqudrati illaahi ilaahay wuxuu qadaray in maalintii ibraahim oo inankii nabigu sala allahu calayhi wasalam uu dhalay caruurtiisa ka mid ahaa ayaa xalay maariyat alqibtiya ay dhashay ayaa dhintay geerida uu dhintay inankaas iyo qoraxdii oo madoobaatay baa iswaafaqay dabadeedna waxaa la isla dhex maray arrin weyn baa dhacday oo wiilkii nabiga sal slam baa dhintay markaa qoraxdu saas u madoobaatay nabigu sal slam wuu khudbadeeyey wuxuu yidhi ina ashamsa waalqamar aayataani min aayaati illaah laa yankhasifaani limowti axadi walaa lixayaatih qoraxda iyo dayuxu laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mida weeye qofna geeridii uma madoobaadaan qofna dhalashadii ama noloshii uma madoobaadaan haddii madoobaadaan salaada u degdega oo waxa weeye alfazac ila salah ayuu nabigu sal slam faray marka in taa loo aamino weli waa hadda caadadaasi waa baaqi oo weli waxaad moodaa bulshooyinka qeybtood way kusii harsan tahay weeye marka waa sunna muakkada weeye wax la dhayalsado maaha qofku waa inuu sunnaha iyo salaada tukadaa fa in faatat haddaba haddii ay dhaafto qofka salaadii inuu tukado lam tuqda lama qalleeyo haddii sunnahaas waqtigiisii uu ku dhaafo oo qoraxdii madoobaatay markaa madowgii ay ka baxdo ama dayixii madoobaaday madowgii uu ka baxo lama qalleeyo weeye wayusallii wuxuu u tukadaa likusuufi الshamsi qoraxda oo madoobaatay iyo wakhusuufi اlqamari dayixii oo madoobaaday waxaa loo tukadaa ama uu u tukanayaa qofku ragcatayni laba ragcadood fii kulli rakcatin ragcad kasta qiyaamaani laba istaag ayuu leeyahay yutiilu اlqiraa'ata fiihimaa akhriskana uu dheeraynayo wuu xidhay salaadii qur-aan fara badan buu akhriyey dabadeedna wuu rukuucay rukuucdii buu dheereeyey haddana samica allahu liman xamida buu yidhi wuu istaagay qur-aankiibu haddana sii bilaabay qur-aankiibu aada u dheereeyey haddana wuu rukuucay waa saasuu samaynayaa laba qiyaam buu samaynayaa rukuucaan weye waxa weye wuxuu leeyahay qiyaamaan maya sujuud waa usoo socdaa labadaa rukuucood markuu sameeyo buu markaa sujuud aadaya labada rukuucood markuu sameeyo ayuu sujuud aadaya duuna sujuud ragcadda marka aad xidhatid oo qur-aankii la akhriyo baa la rukuucaya dabeedna rukuucdii baa dib loo kacayaa qur-aankii baa la akhrinayaa haddana waa la rukuucaya rukuuc labaad taa labaad baa markaa sida caadiga sujuudda lagu aadaya wayakhtubu bacdahumaa labada ragcadood kadibna wuu khudbadaynayaa yani sujuuddii tikraar iyada laguma celcelinayo weeye tikraar laguma celcelinayo wayakhtubu bacdahumaa kadibna wuu khudbadaynayaa kadib oo khudbad baa ka dambaysa wayusiru hoos baa qur-aanka loo dhigaa fii kusuufi shamsi qoraxdu markay madoobaato sababtoo ah salaadihii duhurkii casarkii ee maalinta ku jiray hoos baa loo akhrinayay wayajharu kor baa loo qaadaa fii khusuufi اlqamari dayuxu markuu madoobaadana kor baa qur-aanka loo qaadaa maadaama salaadihii habeenku markaa qur-aanka kor loo qaadayay halkaa axaadiista culimmadu ay u daliishadaan ama fuqahadu ay u daliishadaan masaa-ishan waxa weeye
way kala duwan yihiin. axaadiista qaybtoodna waxay tilmaamayaan 2 ragcadood oo tilaawadoodu uun dheerayd in la tukado. marka qofka isagu 2 ragcadood caadi ee tukada tilaawadana sidaa u dheereeya wax dhibaato ah ma laha. qofka sidan sameeya oo 2 rukuucood iyo markaa 2 qiyaam geliya 2 ragcadoodna weeye oo inta kale ragcadihii caadiga kala mid ah waxa weeye iyana way ansaxaysaa waa sax weeye. waayahay faslun fi salaati اlistisqaa kanina wuxuu baab iyo u yahay fasli waxa weeye salaadii roob doonta. alistisqaa waa salaad la tukado waqtiga dadku ay roob waayaan ama abaare ay dhacdo, waana sunne sida aynu tilmaami doono. qaababka loo roob doono culimadu waxay tilmaamaan 3 qaab inay ugu munaasabsan yihiin oo 3 qaab ay sunno yihiin. qaabka koobaad waxa weeye in salaad 2 ragcadood ah la tukado khudbad leh ilaahayna lagu baryo halkaa. qaabka labaad qofku u roob doono waxa weeye qaabka aynu tilmaamaynay markii dhoweyd oo ah in khudbadda khatiibku uu dadka ugu duceeyo oo nebi maxamed sala allahu alay wasalam isagoo mimbarka saaran ninkii u yimi dee wuu duceeyey isla markiiba daruur baa cirka isqabsatay wiig baanu roobkaasi kala go-in. markii dambena wuxuu yidhi waanu halaagsanay waxa weeye rasuulka ilaahay oo dhinacyada nooga leexi roobka. dabadeedna ilaahay bari inaan dhinacyada nooga leexiyo. dabadeedna wuxuu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna, ilaahay ow dhinacyada mari. marka waxay ku tusinaysaa qaabkaasina wuu bannaan yahay. qaabka saddexaad waa qaab salafka ama culimadii quruuntii 3 ahayd laga soo gaadhay oo ah qofka wanaagsan ee khayr badan lagu tuhmayo in la yidhaahdo noo ducee. cumar ibn khataab waqtigiisii wuxuu u tegi jiray alcabaas ibni cabdilmuطalib oo nabiga adeerkii ahaa sala allahu calayhi wasalam. wuxuu odhan jiray cabaasow nabigu markuu noolaa nabigaanu odhan jirnay noo ducee, maanta nabigu wuu dhintay adiga adeerkiisa oo qaraabadiisii ahe noo ducee buu odhan jiray. cabaasna wuu ducayn jiray. marka qofka aada wanaag ku tuhmaysid oo nool awoodaya inuu ilaahay bariyo waxa weeye in laga ducaysto oo la yidhahdo noo ducee wax dhibaatay kuma jirto oo waa dariiqo xalaala weeye. laakiin qof dhintay iyo xabaal sheekh oo lagu dul wareego iyo jiman iyo balaayo loo yeedho iyo xoolo inta lasoo qalo meel la isugu keeno oo la yidhahdo waxa la wada cuno midnaba shareecada ilaahay kuma soo aroorin. midnaba alla bari xoolo badan dadka lagu soo qalayo oo la odhanayo qof xoola soo qaad ma soo aroorin. 3daa dariiqo baa waxay yihiin dariiqooyinkii asalka ahaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam qaabkii roob doonta uu u tilmaamay xadiidka cabdillahi bn zayd uu warinayo ee saxiixeynka ku sugan waxa uu tilmaamaya waxaan arkay buu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam oo u baxay roob doon maalin maalmaha ka mid ah. dabadeedna markii uu meesha tegey nebigu dhar iska hambala oo iska jilicsan oo aan ahayn dharkiisii ugu quruxda badnaa ayuu ku baxay. waana sida la rabo, waayo mowdica iyo boosku boos labis iyo qurux ciid maaha, waa roob doon, waa waqti ilaahay dhulka la isu dhigayo oo markaa tadaruc iyo markaa isdhuldhigid la muujinayo, isu duleyn ilaahay la muujinayo weeye. marka wuxuu sameeyey nabigu sal slam cimaamadii uu sitay ayuu rogay. markii uu meesha tegey cimaamadii sitay ayuu rogay, wuxuuna tujiyey dadka 2 ragcadood oo kor u qaaday, khudbadna uu ka dambeysiiyey. dadkana markaa waxa weeye wanaagsanaya meesha joogana uu yidhi hala duceeyo, oo dadkii saalixiinta ahaa ee noolnoola uu yidhi hala duceeyo. marka dadku inay ducaystaan waxa weeye oo ducada la dalbo waa 3 qaab ee bannaan weeye. 3 qaab ee bannaan weeye. waaye faslun kanina fasli wuxuu yahay fi salaati اlistisqaa. wa salaatu اlistisqaa'i salaada roob doontu masnuunatun waa sunne. fayaأmuruhum اlimaam, imaamku markaa wuxuu farayaa bitowbati dadku ilaahay subxaanahu watacaala inay u soo noqdaan. sababtoo ah roobka in la waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha macaasidu ay keento.
waxyaabaha macaasidu ay keento ayuu ka mid yahay. walow ana ahla alquraa aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard. dadku haddii ay ilaahay rumayn lahaayeen, alla ka cabsina la iman lahaayeen, barakooyinka samadaa loo furi lahaa. maxaa looga joojiyey? waxa weeye kufri iyo markaa macasi iyo xumaan ay sameeyeen weeye. marka in dadku ay toobad keenaan oo allah subxaana wa tacaala usoo noqdaan buu farayaa. wasadaqa, dadku inay wax la baxaan ayuu farayaa. waalkhuruuji min almadaalim, cid dulmi markaa ku samaysay inay ka baxdo ayuu farayaa. wamusaalaxati alacdaa, in dadkii muslimiinta ahaa ee markaa colaadi ka dhaxaysay ay heshiiyaan ayuu farayaa imaamku. waxa weeye wasiyaamu 3 ayaam, dadku inay soomaan 3 maalmood. 3 maalmood culimadu waxay tilmaamaan maalinta lasoo baxayo 3 maalmood oo ka horeeya inay soomaan buu farayaa. ثuma yakhruju bihim, kadibna wuu la baxayaa fi lyowmi الraabici, maalinta 4aad, fii hiyaabin, dhar isaga oo sita, badlatin wastikaana, dhar markaa liita oo iska ay ka muuqato inaan dharkaagii ugu wanaagsanaa aanay ahayn, oo isdhuldhigid ay ka muuqato iyo tadaruc. wayusallii bihim, wuxuuna tujinayaa 2 ragcadood ka salaati alciidayni, sida salaadii 2 ciidood. ثuma yakhطubu, dabadeedna wuu khudbadaynayaa. maye waxa weeye isagu wuxuu yidhi wayusallii bihim 2 ka salaati alciidayn, 2 ragcadood buu tukanayaa, kadibna sidii ciidda ay khudbadii uga dambeysay buu khudbadii xagga dambe uga dambeysiyey, moogtahay. laakiin axaadiista tilmaamaysa arintan ma sheegayso in khudbadu ay saa uga dambeyso, ma sheegayso. khudbada inay ka dambeyso ma sheegayso weeye. bal qabla salaah inay tahay khudbadu, oo nabigu sal ly slam uu la hadlay dadka muslimiinta intaan salaadaba la tukan, ayay axaadiista saxiixa ay u badan tahay weeye. axaadiista saxiixa saasay u badan tahay. ثuma yakhطubu, dabadeedna wuu khudbadaynayaa. ثuma yakhطubu, kadibna wuu khudbadaynayaa bacdahumaa, 2 ragcadood kadib. wayuxawilu, waanuu rogayaa ridaa'ahu, go-iisii. wayukhiru, waxaanu badinayaa min adducaa'i wاlistigfaar, ducada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf in la weydiisto. wayadcuu, wuxuu ku ducaynayaa biducaa'i rasuuli illaahi salى اllahu calayhi wasalam, ducadii rasuulku uu ku ducayn jiray ayuu ku ducaynayaa, oo ahayd allaahuma ajcalhaa, ilaahayow ka yeel, suqyaa raxma, waraabin naxariiseed ilaahayow ka dhig. walaa tajcalhaa, ilaahayow ka yeelin, suqyaa cadaabin, waraabin cadaab ilaahayow ka dhigin. walaa maxqin, waraabin baabi'in ilaahayow ka dhigin. walaa balaa-in, balaayo iyo dhibaato ilaahayow ka dhigin. walaa hadmin, roob markaa wax dumiye ilaahayow ka dhigin. walaa garaqin, roob markaa waxa weeye wax burburiye oo dadka yani lagu hafto, oo markaa dadka liqa ilaahayow ka dhigin. intaas xadiidka tilmaamaya allahuma suqyaa raxma ilaa walaa garaq, inta tilmaamaya xadiid daciifa weeye oo aan daliil ahaan xoog badnayn. allaahuma cala adiraab, ilaahayow buuraha gaagaaban dushiisa roobka ka yeer ee xooluhu kori karaan. waalaakaam, kurta iyo meelaha taaggaa ilaahayow ka dhig. wamanaabiti shajar, meelaha ay dhirtu ka soo baxaan ilaahayow ka dhig. wabutuuni alawdiya, togaga markaa calooshooda, togaga dhexdooda ilaahayow ka dhig. allaahuma ilaahayow xawaalaynaa walaa calaynaa. ducadan dambe waa marka roobku uu badan yahay oo waxyeelo laga baqo ayaa lagu ducaystaye, roob doonta ma aha. roob doonta ma ahee, roobku markuu badan yahay ayaa lagu ducaystaa. allaahuma asqinaa, ilaahayowna waraabi, gaythan, waraabin ama gargaar, mugiithan, noo gargaara, hanii'an, mid lagu nasto, marii'an, mid hunguriga mara oo markaa quud wanaagsan uu ka soo baxo, mariican, mid daaq wanaagsan leh, saxan, mid biyo badan ilaahayow nooga dhig, caaman, mid markaana wada gaadha ilaahayow nooga dhig, gadaqan,
mid mahiigaana oo biyo badan ilaahay ou nooga dhig طabaqan mid dhulka daboola ilaahay ou nooga dhig mujallalan mid wada gaadha ilaahay ou nooga dhig daa'iman mid joogta ah ilaahay ou nooga dhig ilaa yowm اddiin ilaa maalinta qiyaame allaahuma ilaahayow isqina algayth ilaahayow gargaarna waraabi walaa tajcalnaa hana naga yeelin min alqaanitiina kuwa naxariista ilaahay ka quustay ilaahayow hanaga mid dhigin allaahuma ilaahayow ina bilcibaadi addoomaha iyo walbilaadi dhulkaba waxaa ku sugan min aljahdi dhib waljuuci gaajo wadanki iyo cidhiidhi maa laa nashkuu waxaanaan uga ergoon karin ilaa ilayka xaggaaga mooye allaahuma ilaahayow anbit lana zarca ilaahayow noo soo saar daaqa wa adir lana darca ilaahayow candhadana noo darari oo caanihii iyo markaa ilaahayow noo keen ilan xooluhu wax kastoo ay daaqaan haddaan ilaahay caana gelin waxa weeye caana lagama helayo wa anzil ilaahayow noo soo deji calaynaa dushayada min barakaati asamaa barakooyinkii samada ilaahayow noo soo deji wa anbit lanaa ilaahayow noo soo saar min barakaati alardi barakooyinkii dhulka wakshif ilaahayow naga fayd cannaa xag dushayada ilaahayow ka fayd cannaa min albalaa balaayadan ilaahayow naga fayd maa laa yakshifuhu gayruk waxaanu adiga mooye cid kale faydi karayn allaahuma ilaahayow inaa nastakfiruka adiga ayaanu dembi dhaaf ku weydiisanaynaa inaka kunta gafaaraa ilaahayow adiga ayaa dembi dhaafid badan dembi dhaaf badan adiga ayaa lehe ilaahayow adiga ayaanu dembi dhaaf ku weydiisanaynaa weeye fa arsil isamaaa ilaahayow samada soo dir calaynaa dushayada midraaraa iyada oo biyo badan weeye iyada oo biyo badan ay ka soconayaan ilaahayow dushayada kusoo dir weeye waaya marka dacooyinkii weeye uu sheekhu tilmaamayaa ayuu intaa kasoo qaatay nabigu sal ly slam uu ku ducayn jiray ayuu kasoo qaatay wayaqtasilu fi lwaadi haddii biyuhu ay socdaan oo biyihii roobku ay yimaadaanna toga iyo markaa biyahaa dareeray ayuu qofku ku meydhanayaa bal nabiga sala allahu alay slam waxaa ka sugan in uu roobka dhibcaha ugu horeeya isu dhigi jiray markii la yidhi yaa rasuul allah maxaad isugu dhigaysaana wuxuu yidhi inahaa xadiidu cahdin birabbiha waxa ay wakti yar unbay ka sokeysay ilaahay waa naxariistii ugu dambeysay ee soo degtay culimadan waxay tilmaamaan caafimaad badan iyo wanaag badan inuu ku jiro dhibcaha ugu horeeya ee qofku inuu isu dhiga ay tahay waa naxariis ilaahay oo soo degtay wayusabixu qofku wuu tasbiixsanayaa oo subxaana allah buu odhanayaa liracdi markaa onkod dhaco onkod marka uu maqlo walbarqi iyo hilaac marka uu dhaco hilaaca iyo onkodkana waxa weeye wuu tasbiixsanayaa qofku in sha allahu inahaas aynu kusoo gabagabayneynaa salaat alkhowf ayaynu darsigeena dambe hadduu rabbi yidhaahdo ka bilaabi doonaa subxaana rabbika rabi اlcizati camaa yasifuun wasalaamu cala اlmursaliin walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wax su-aali ma jiraan sheekh hay صح safarka meesha aad ku maqan tahay meel degaan ku ah horta maaha anytime soo shirkadu kuma odhan karto maanta waa inaad baxdaa mar haddii ay safar noocaasa tahay deegaankaagii aad deganaydna aanad ahayn inta aad deegaankaagii ka maqan tahay safar baad ku jirtaa bal xitaa haddaad darawal tahay oo aad socodkaaga uu safar yahay waxa weye inta aad safarkaa ku jirtid waxa weeye xukunkii musaafirka aad qaadanaysaa salaadihiina waad gaabinaysaa waana jamcin kartaa hay
sideetan iyo labo shaaficiyadu waa sideetan iyo labo waliba ha ma arag cid afartan tiri ishaydu ma qaban culimada inta meesha masaafada lagu jamcin karo malaha dadka ugu xoog badan ee waqtiga ku xadida ama booska ku xadida waa shaaficiyada waxayna ku xadidaan 16 farsakh oo waxay tahay 82 kilomitir noqonaysa iyo jajab ayay ku xadidaan maba xooganaba in ilaahay subxaana wa tacaala wain kuntum calaa safarin ayuu tilmaamay safar buu inoo tilmaamay lafdigaa safar daliil kale oo soo gaabiyey oo yidhi safarkaasi intaas waa inuu la ekaadaa ma jiro daliil xoogan oo tilmaamay magaca safar wuxuu ku dhacayo inay soo wada hoosgelayso baa xoogan oo yani aada xoogan weeye salaada maqribka horta nabiga sala allahu calayhi wasalam kama sugnaanin oo xadiid saxiixa inuu salaadaha shanta ah salaad ka mid ah cudurdaar la-aan uga tegay bal maalin ay yuhuuddu mashquuliyeen oo salaadii casar shaqaluuna can salaati alcasri buu yidhi oo salaadii casar uu ka yar habsaamay salaadii casar uu ka habsaamay marka nabigu sal ly slam shantaas salaadood ee faradka ah in salaad kasta waqti ay leedahay oo waqtigeeda aan la dhaafin ayaa sida saxda ah may dhicin in la yidhi nabigu sal slam xadiid saxiix ay kusoo aroortay salaad buu ka tegay ula kacna uga tegay wax sababana aanay jirin xadiid saxiixa maaha maya ma soo marin xadiidkaas maya guud ahaanba salaadii maqrib inuu ka tegay nebigu sal slam oo aanu tukan ma maqal xadiid sidaa tilmaamaya haye imaamkii baa salaadii tukanaya imaamkii weysada ka jabtay u baxay sax soo weyse qaadanaya qofkii ku xigagaa salaadii tukaya salaadaasi markaa ma saxda mise imaamkan labaad ee tukanaya salaadii imaamkii hore ku xidhay asal ahaan haddii imaamka wax ku dhacaan waaba xanuunsaday ama salaadii weysadii baa ka jabtay ama dhibaato kalaa timi qofka bedelaya dadkii ahlulqur-aanka nabigu sal slm wuxuu tilmaamay marka uu salaad tukanaya wuxuu odhan jiray liyali ulunuha hay soo xigeen dadka ahlulqur-aanka iyo dadka wax garanaya inay hay soo xigeen qofkaasi marka uu soo bedelo salaadii isagaa imaamka ah isagiina jamaacado dhan ku wada xidhan tahay wax jamaacadii iyo salaadeedii ama jamaacadeedii wax yeelayaa ma jiraan sidii caadiga ahayd ee uu tukanayey ama imaamkii hore uu u waday buu imaam kalena u wadayaa jamac ahaanna waa sax weeye oo ajarkeedu waa saasuu qofkii labaad sameeyey sacuudiga ahayd riyaad dabeedna wiilka bacd imaamkii caadigaaba u qabsaadka sax wuxuu yidhi salaadii ayaantaa usbuucii hore aynu tukanay dib baynu qalayna dib baanu qalayna salaada waa fiqi xumo weye waa fiqi xumo in la yidhaahdo may sabab hadda loo odhan karo salaad imaamkii intuu ka horta imaamku haddii uu ogaado inaan weyse qabin inuu sii wadaa waaba dembiba marka hadduu ka baxo ila bini aadan baa layahay waana laga baxayaa mar hadduu ka baxo oo cid kale ay soo bedesho qofka kale jamaacadii isagaa imaamka ah jamaacadiina isagaa u dhammaystiraya wax dhibaato ah oo salaadaasi leedahayna ma jirto bal haddii ay dhacdo imaamku weyse la-aan buu idinku tujiyey salaadii min bidaayatiha ilaa dhammaadkeedii weyse la-aan buuba ahaa wuxuu xasuustay inaanu weyse qabin salaadii marka laga baxay idinku salaadiina kuma soo celinaysaan idinka salaadiina waa idiin ansaxday salaad saxaa tukateen isagunbaa la rabaa tiisi inuu kusoo celiyo
sababtoo ah wax hadda dembi la idiin saaro oo loo yidhaahdo idinku salaadii waa inaa ku socdo idinku weys idinkama jabin مع إسقي بدي بلوت كيوا ha إسقي كبحي ha يعني أسان أيام في أي سلا هاي sax صلاتي وانسو علينا وانسو أوجاني دي بلوت كنا أيام في قلنا bayaan arrintaas wax cusub waa u gub weeye arrin cusub weeye meesha uu wadaadkaas ka keenay in la weydiiyey ahayd oo adiladeeda la weydiiyey ha walan ha ha sax sax صح صح هي meesha aad joogteen soo markii hore musaafirku ma idan ahayn dee qasrigiini baa idin socda wax markaa saameyn ah idinkuma lahayn laakiin haddaad Edmonton adigoo jooga salaadii waqtigeedii kuu soo gasho maalintaana airportka aad ku qoran tahay dee waxa way salaadaadii wada dhamaystiraysaa intaad Edmonton joogto dee wali waxa duhurkaasaad israacinaysaa soo duhur kama soo baxaysid meesha duhur ha ha صح ma gaadhaysaa maqrib meeshaas mise waa ka hor baa gaadhaysaa diyaaradda ku tukanaysaa ha salaada casar diyaaradda ku tukanaysaa ha qasrigu wuxuu kuu bilaabanayaa marka aad safar gashid tusaale ahaan halkan aan ka baxay safarkii baan tegeyba safarkaygii markuu ii bilowdo ilaa halkan markaan ka baxo safar baa ii bilowday safarku markuu ii bilowday waan ku tukanaya halkaa ha ha mar haddaad safarkii gashay safarka dhexdiisa waa ku tukan karaysaa ama diyaarad ku dhex tuko ama intaana diyaaradda horteeda ku tuko ama agteeda ku tuko waxa weeye safarka mar haddaa gashid waa ku tukanaysaa ha أيه جزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ها